siyaasi Cabdulqaadir Cali Obsi oo siyaasi madax bannaan ayaa waxa uu ka hadlay arrimaha dekada Berbera isagoo xukuumadda ugu baaqay inay culayska ka qaadaan dadka deegaankaasi isla markaasina ay si cad ugu bandhigaan heshiiska ay la soo saxiixdeen shirkadda DP World. Dekadan sida warkeedu soo baxay wax sax iyo wax qalad ah isku jirtaa horena waan uga hadlay waxaan leeyahay horta cadaadis kan faraha badan leeyahay ka qaada wadadkeennii faraha badan la ku haysaan ka qaado ka yareeya talabaadan idin leeyahay xukuumadda waxa weeye dadka qanciya oo dadku waa dadkiinii qanciya qof iyo laba ha u dirinee ama cid yaro kooban ha kala tashanine ballaariya. dhanka kale siyaasi Cabdulqaadir Cali Obsi ayaa waxa uu baaq nabadeed u diray beelihii dhawaan diriirtu ku dhex martay deegaano kamid ah bariga Soomaaliland waxaana uu ugu baaqay inay nabadda ilaashadaan. yani beelihii dhawaan ku diriiray goboladan Soomaaliland kamid ah waxaan leeyahay insha Allah taala si afkarad ba lagu dhameeyay afkaradkeena ku sii wada ilaahayna waxaan ka rajeynayaa cid kasta oo khilaaf dhex yimaado inay ayagu gacmahooda ku dhameystaan oo wada heshiiyaan. Cabdulqaadir Cali Obsi oo inta badan u ololeeya in la abuuro siyaasiyiin madax bannaan ayaa madaxweynaha Soomaaliland waxa uu ka codsaday in xeerkii saami qaybsiga kuraasta aqalka golaha wakiilada oo dhawaan ay ku soo celiyaan asxaabta saddexda xisbi qaran in uu xildhibaanada dib ugu celiyo si loogu daro waxyaabaha ka dhiman. siyaasigaasi oo shir jiraayad ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa gabagabadii waxa uu hambalyo u diray madaxweynayaasha dawladda Djibouti iyo madaxweynaha dalka Turkiga. waxaan leeyahay hambalyo waxaan kala inta u sii raacin lahaa anigu madaxweynaha Turkiga waxba ka argoosanin dadka cafiska u badi ilaahay wuxuu jecel yahay dadka wax afiyeen waxaan kala halkan hambalyo uga direeyay bogaadin madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geele runtii oo siyaasad wanaagsan ka ciyaaray shirkii dawladaha Carabta siyaasad runtii aad u wanaagsan ka ciyaaray shirkii 27aad ee dawladaha Carabta ee Mauritania ka socday oo uu kaga hadlay islaamnimada iyo dhalinyaranimada iyo waxyaabaha maartay Afrika maanta ay u baahan tahay iyo Carabtuba runtii taana waan ku hambalyeynaya waana rag mudan runtii in lagu daydo madaxweynaha waxa lagu saddexdii xisbi qaran waxay ku heshiiyeen in madaxweynaha arrinkiisa ama qaybsiga dib loogu celiyo ku heshiiyeen aan waxaan ku talin lahaa madaxweynaha inuu dib baarlamaanka ugu soo celiyo si loo raaciyo wixii kale loo baahan yahay ee ajandayaala sida musharaxa madax bannaan oo kale. Yaqoob Saad Kuriya Somali News TV magaalada Hargeysa.